waxaanu wasiirku sidaas ku sheegay shir jaraa'id oo ay maanta xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta ku qabteen wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi macdanta iyo tamarta. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta injineer xuseen cabdi ducaale waxa uu mid u beeniyey nuxurka qoraalada kusoo bixi jiray wargeyska haatuf oo xambaarsanaa musuqmaasuq uu ku kacay wasiirka wasaaraddaasi. hase haatee waxa uu wasiirku sheegay in guddoomiyaha wargeyska haatuf uu hore ugu hanjabay in wargeyskiisu dagaal la geli doono wasaaradda macdanta iyo tamarta kadib markii wasaaraddu diiday dalab uga yimid guddoomiyaha wargeyska haatuf iyo nin ay qaraabo yihiin kaasi oo ay ku doonayeen in ay wasaaradda ogolaansho uga helaan shirkad aan buuxin shuruudihii shirkadaha caalamiga ah looga baahnaa. wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalkiisa ka mid ahaa. muddo sanad iyo badha laga joogo waxaa ii yimi mulkiilaha jariidadda haatuf Mr. Yusuf Abdi Gaboobe iyo nin ay qaraabo yihiin. waxay ii keeneen waraaq ka timi shirkada ajnabiga oo ay ku rabaan inay iyagu dilaal ahaan blocks saliideed loo soo dhiibo oo sharikadaasi nacam siday u qoran tahay waraaqdu ay markaa igmatay inay u soo qaadaan oo Soomaaliland uga soo qaadaan oo markaa dabeetana ay yani heshiisyada blocks-ka ay moogtay sharikadaasi ay moogtay qaadato. markaa buu u doorashay bikul ixtiraam markaanu evaluate garayno aanu moogtay aanu qiyaasnay macluumaadka ay soo gudbiyeen shirkadu waxaanu markaa niri waa raalli baa naga ahaan kartaan maydin buuxin shuruudihii aanu arki doonaynay inaan buuxisaan si haddii bayd maayo aanu idinku sidar garayno inaanu markaa blocks aanu magaranaysaa la galo heshiisyada u qaadan lahaydeen. runtii markaas mulkiilaha haatuf iyo ninkii la socdayba aad iyo aad arrintaas ma ay qaadan, aad iyo aad bay uga caroodeen, dagaal bay arrintaa markaa ka galeen. waxay markaa ay ku ballan qaadeen haatuf in uu isticmaalo hubka uu haysta ee dadka ku garaaco. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta injineer xuseen cabdi ducaale waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta wargeyska haatuf looga baahan yahay inay hay-adaha garsoorka hor keenaan eedeymaha ay u soo jeediyeen. wasiirka wasaaraddaasi mudane xuseen cabdi ducaale waxa uu shirkiisa jaraa'id ku soo bandhigay in muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay ay xukuumaddu heshiis caalamiya la gashay 3 shirkadood oo caalami ah oo kala ah Ophir, DNO iyo Anson, kuwaasi oo sahamin dhinaca shidaalka ah ka wada dalka. isla markaasina waxa uu tilmaamay in shirkadahaasi ka soo xeroodeen dakhliga xaqalqalinka loo yaqaano oo gaarayay $1,181,000 oo dollar. waxaanu barbardhig u soo qaatay 8 sannadood ee ka horreeyay ee xukuumaddii hore ee madaxweyne Riyaale in ay wasaaraddaasi soo xiraysay dakhli dhan $185,764. wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in lacagtaasi ka soo xireetay 3daasi shirkadood ay si toos ah ugu dhacday qasnada dawladda. waxaanu halkaasi ku soo bandhigay dokumentiyo cadeynaya in wasaaradda maaliyaddu qabatay lacagtaasi. waxaanu yidhi halkan waxaa ku yaala statement aan idin qaybin doono oo qof walba waraaq qaadan doono oo muujinaysa dakhligii wasaaraddu soo xaraysay xaqalqalinada iyo kirooyinka dhulka ka soo xaraysay sanadkii aanu mas-uuliyadda qabanay 2010 ilaa iminka 2014 waa kan lacagoodaas markaa waxa weeye waa lacagoodii aanu soo xaraynay. halkaa waxa weeye ilaa 2010 waxaanu soo xaraynay 1.5 milyan 580,000 ayaanu soo xaraynay. waxa kale oo halkaasi iyaguna hadal ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi macdanta iyo tamarta Cabdisalaam Maxamed Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi mudane Saciid Axmed Jibriil. waxa ay labadooduba faahfaahiyeen habka iyo hanaanka maamul ee ay lacagta ka soo xireetay shirkadahaasi ay ugu dhacday qasnada dawladda. waxaanay mas-uuliyiinta wargeysyada iyo warfidiyanada u soo jeediyeen in ay mas-uuliyad iska saaraan wararka ay baahinayaan.